wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Axmed Nuur Shaacir ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay 27 arday oo ka qalin jabiyay kulliyadaha caafimaadka iyo sharciga ee Jaamacadda Sanaag University magaalada Cerigabo. Munaasabadda qalin jabinta ardayda oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka ee heer gobol iyo heer degmo, aqoon-yahan, waalidiin, xildhibaano, maamulka macallimiinta iyo ardayda Jaamacadda Sanaag University. waxaana ugu horreynba munaasabadda furitaanka ka hadlay gudoomiyaha Jaamacadda Sanaag University Cali Cabdi Hurre iyo dhiimanka labada kulliyadood ee sharciga iyo caafimaadka Dr. Mustafa Muuse iyo Shacayb Maxamed Cilmi. runtii maanta waa maalin farxad leh oo ah qaabkii saddexaad ee Jaamacadda Sanaag ka qalin jabiya ay maanta xafladoodii aynu u taagannahay halkan oo qabanay. waxaan ku hambalyeynaa guusha ay gaadheen ay muxuu ahaa ka gaadheen aqoontii ay xaqiijiyeen hadafkoodii ay u socdeen. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. waxaa hambalyo mudan macallimiintii soo gaarsiisay halkaa iyo waalidkii ku soo tabcay labaduba waxa weeye ayaguna hambaliyay mudan yihiin. labadaa la-aantoodna may soo gaadheen halkan. waxaana ilaahay uga baryayaa inay noqdaan kuwa mustaqbal ifaya ka hortaga. waxaana hubaa haddii aad xarigga ilaahay qabsataan inuu mustaqbalkuna idin hagaagayo. waxaan leeyahay ألف مبروك النجاح وجعله ربي على سبيل الدوام. runtii waxaan maanta kelmado kooban oo dareenkayga ku saabsan aan oran doonaa lana wadaagi doonaa ardayda aynu maanta martida u nahay ee aynu xafladooda joogno oo runtii ah arday muddo 4 sano u soo samrayay dariiqii dheeraa ee jaamacadda. runtii oo maanta ay tahay guushoodii iyo dabaaldegoodii iyo farxadoodii. waxaan jeclaan lahaa runtii dareenka igu jira waan ogahay inuu idin fara idinku jiro inaan maxay ahaydeen ardaydaas si gaar maanta aynu ula wadaagno. waxaan maanta noo tahay guud ahaan dhammaanteynba gaar ahaan macallimiinta imaamka Jaamacadda Sanaag iyo ardaydu farxad aan soo koobi karin maadaamaanu maanta hortaagannahay aan hor joogno midhihii jaamacad soo saartay muddo 4 sano ah ay maanta insha Allah soo gaareen. aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. kelmadda koowaad waxaan leeyahay ardayda qalin jabisay congratulation ama hambalyo. aad iyo aad ayaan idinku rajeynaya inaan mustaqbal fiican aad kun iyo waxaan horumar aqoon u sugtaan insha Allah taala. intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii, waalidkii iyo maamulkii ardayda garabtay muddo dheer ee 4 sano ee hili hawla la garabtay. haddii aanay iyagu jirinna la-aantood ma suura gasheen. waxaa leeyahay waalidiinta iyo macallimiintana aad iyo aad u mahadsantihiin. waajibna saaraha gudanay dhammaanteenba ilaahay hayna soo jisaadigiisa insha Allah. waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xubno tiro badan oo ku hadlayay afka aqoon-yahanka, waalidiinta, xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka soo qayb galay munaasabadan iyo waliba ardayda qalin jabisay. waxaan ku faraxsanahay hawshan maanta ka dhacaysa ee qalin jabinta ah. waa arrin weyn oo maanta ay inooga hortahay ardaydii oo qalin jabisay oo shahaadooyin qaadanaysa kulliyado badan. waxaan jeclaan lahaa inaan hambalyo iyo salaan iyo duco isugu daro. waxaan laakiin kaa dareemayaa maadaama aan dhammaantood ardaydii kulliyadihii qalin jabinayay afkoodii ku hadlayo keligii inaanaan ku jirin annagu kuwa lagu leeyahay soo kooba ee aanu nafisno. midba midkii uu ka adkaysi badnaa ayaa xoolaha ka soo dooga. taas waxay muujinaysaa in 10ka arday ee kulliyadda sharciga maanta ka qalin jabiyay ay yihiin birfiniin ka hadhay. gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay iyo maayirka magaalada Cerigabo oo halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda ardayda ku booriyay in aqoonta ay barteen uga faa'iideeyaan dalkooda iyo gobolkooda. ولا عجلة إذا جامعات بكبحة ويرجعوا إذا لو رئيسية إذا جامعات بهذه كبحة هذا الشيء أنت لا يبدأ بسنة بدنا فيه وجامعات السنادة وعلم وقوة وأرجع بحدين ووصل عليهم أي لا يقبلون. هذه أفضل بنتي وقوم فرح سنة هاي إن ما نتذكر أينو كلاقي قادرنا أدنى سود يا شيء الجامعات Cerigabo ka baxday
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa laga soo hadlay dhammaanba arrimihii laga hadlayay oo dhan waa laga soo hadlay ardaydan iyo jaamacadda waxaan qirayaa inay yihiin jaamacadaha ugu tirada fiican yarti ardaydana waa ku yar tahay intani xaashaa lama odhan karo ardaydani jaamacadda waaba intii iyadu siraadiisay ee kasoo qayb gashay meelmadooda ama dhiganaysay waxaan leenahay inta kale ee gobolkii sanaag ee ka baxday dugsiyada dhexe iyo kuwa kale oo ka yimaada meelo kaleba horta jaamacadda soo camilo oo aad iyo aad loogu soo camila gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi shahaadooyinkii qalinjabinta ku guddoonsiiyey ardayda wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Nuur Shaacir. waxay ka mid tahay meelaha gobolka ee jaamacadeedu ay tayada leedahay tiro fara badan jaamacadahay kama soo baxaan arday tayada laakiin jaamacadda tireedu ay yar tahay waxaa ka soo baxa arday tayale sababtoo ah lectureka macallinku uu bixinayo inta kooban wada gaarsiinaya laakiin hadduu fasalku 80 boqol noqon si arkiisoo kale qaar baa laba socon ba lectureka uu macallinku bixinayo laakiin nasiib wanaag sanaag meel wanaagsan bay ku taalla jaamacaddu ardaydu waa arday kooban oo lectureka si fiican maqlaysa practicalka xataa ay samaynayaan oo waxay markiiba koobi karaan laakiin fasal 80 oo lagu leeyahay waa caafimaadka goor muu gaadhayaa shaybaarka ay samaynayaan ardaydu waxay markaas tayahaan sanaag boqolkiiba boqol bay aad u wanaagsan yihiin